بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku soo gudbin rabaa tix yar oo aan kaga hadlayo dhibaatada uu federaalku markaasi noo horseeday ee isqabsiga u dhaxeeya hadda markaasi dawladii iyo sidoo kale maamul goboleedyada oo aad dareemi karto markaasi dhibaatada hadda siyaasadda Soomaaliya uu ku yeeshay waxaan kaloo meesha ku jirta in dawladaha markaasi Soomaaliya cadow ku ah ay fursad u arkaan in Soomaaliya iska hor imaato oo maanta ay u tahay jaanis marka tixda federaal qurun ayaa la yiraahdaa waxaan u dhacay oraah qoran baa waxay qeexay qaylaha yartaa qolay qeyr iyo qod u tahay ku qasaari wacdagu Soomaaliya isqabsiga iyo qalalaasaha qarankeena ka dhex qaayiban dad qarsoon iyo caado qaatiyo cadow qaasoo qorshahan degay way qanceen oo way qaylayaan ur qaboobo way qoslayaan oo way ku farxeen maanta dhibaatada Soomaaliya ka taagan dadkii markaasi uu cadowgu soo adeegsaday ee markaasi qandaraasyada ku soo qaatay in Soomaaliya siyaasadeeda la qaso si ay meesha u soo dhaafin federaalku marka maxay baday ummad quwad liya anagoo qaran hal qabiilo qaayaween oo isku qoyso qaarad wada daga qaadir naga dhigay federaal qurun qoomkii keenay noo qurxiyay qaata nagu yiri qaaxa hadisay qar inaga ride na qiyaamo god inoo qode ina qaybsho ina kala qarshe god qiyaamaha ninkii qodob uu qabrigii noqon waa mahma marka god qiyaamaha ninkii qodob uu qabrigii noqon qandaraasyada ragii qaatee gumaysi qarsoon u qidmeeyo laaluushka qarsoon qooma ma xigi